السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي ku xiran barteeda YouTube-ka halkan aan ku suganahay waxa la yiraahdaa High Park Corner waa jid weyn oo isku xira Central London dhinacaas waxa ka jira baag weyn oo aan maanta idin geyn doono laakiin London iyo quruxdeeda iyo baladeeda iyo baankeeda iyo inaan xayisiyo uma soo galin waxa halkan soo galiyay memory-ga halkan ku yaala halkan waa astaan loogu talagalay in lagu xasuusto geesiyaashii xayawaanada ahaa ee ka soo qayb qaatay dagaalkii labaad ee dunida magacyadooda ayaa halkaas ku xardhan iyagii oo dagaalka ku jiraan waa kuwaana ninkan odaga dameer baa la dhahaa ku badan buu qaadi jiray waxa weeye raggii safka hore kaga dagaalami jiray qorigii dhacayay ninkii sidee weeye ingiriisku waxay u arkaan inuu haliyay yahay dalkan dagaalkii labaad doorkiisa ka soo qaatay magaalada London oo wadnaheedii ahna wuxuu ku leeyahay astaan lagu xasuusto oo lagu dhaho Master Farasow mise dameerow bidaa tahayba thank you waanu ku ognahay inta aad qabatay dhanka kale waa kan Master Dameer asaguna wuxuu ahaa ninka saadka sida haamaha kor uga raran yihiin iyo rasaasta iyo raashinka waxa halka ku jira kama maqnaa geeliba xataa ku jira fardihiiba ku jira xataa elephant marodigiiba ku jira dagaalka ka qayb qaatay shimbiraha waxa ku jira iyaguna fariimaha sirta ah qaadi jiray marka waxaan oo dhan oo xayawaana waa la xasuusanayaa waa loo mahad celinayaa waxayna ku leeyihiin astaan bartamaha magaalada London ku taalo oo iyaga waxtarkoodii iyo doorkii ay ku lahaayeen dagaalkii labaad ee adduunka lagu xasuusto haddaba waa maxay baad isleedahay moral lesson ka meeshan ku jira ninkan odaga ay hadda saaka ma wuxuu noola soo shirtay waliba dhanka kalena aan tuse waxa jooga Mr. A oo ahaa raggii hadda waa taqaanaan markii loo baahdo in arrin degdeg laga jawaabo waa kana halkaan uu taagan yahay fardihii lagu dagaalamay waa kuwana faraski sayidka ya wuu soo xasuusiyay runtii door weyn bay ku lahaayeen waxa halkaas ku qoran flower baa loogu beeraa sanad walba waa la xasaa waxaas waa magacyadoodii Master Dameer Master Faras Master A shimbiraha elephant all of them waxay baleegareeyaan baa lagu leeyahay vital role door muhiim ah ay ka qaateen dagaalkii labaad ee adduunka iyo maanta inay Great Britain ahaato wadan afka Ingiriiska looga hadlo ee aan German looga hadlin marka waa maxay hadaba moral lesson ka aan idin la wadaagayo waa maxay waxaad ka baran kartaan and this is meesha aan u socday oo aan saaka u soo kalahay inaan idin la wadaago the moral lesson aan ka baran karno dadkan dameerahoodii dagaalka u soo galay sharaxayo ubaxa u beeray waxa weeye Soomaaliya meeqa haliyay ayaa dagaal u soo gashay Soomaaliya inay maanta runtii xornimo qaato haliyayada Soomaaliyeed maxay naga mudan yihiin aad baan ugu mahad celinayaa runtii mana aha cawo iyo maalin horseedna igama aha laakiin xukuumadda nabad iyo nolol astaamaha ay dib u soo celisay Xawataako dhagax tuur Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan daltirkii dahsoon in la taagaa oo astaamahaas la tusaa oo aanu maaragtay dad baa waxay leeyihiin sanamiyuu dhisay muxuu dhisay aragta arintaas waa kaga arin duwan waa kaga fikir duwanahay waa moralka shacabka oo la kiciyo waxa la rabaa wiilka yarka ee Soomaaliyeed ee xaafadda hawlwadaag kaba soo qaad degan oo aabihiis maalin walba u raaca masaajidka isbahaysiga islaamka oo arki jiray sayidkii oo qashin hoos yaallo sayidkii oo maaragtay oo hoos yaallo qashin iyo dhala jabta iyo dhagax tuuro sidii oo kala burbursan oo masaajidka aabihiis markuu maalin walba kaxeeyo arki jiray wiilkaasi maanta wuxuu haystaa su'aalo uu aabihiis weydiin karo abbe waa maxay meeshan waa maxay markaas aabuhu uga sheekeynaya aabbo halkan waa Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan وهاليي هالكاس وادغحتور وهاليي marka taalooyinku waxay leeyihiin nation building qulubta dadka in kor loo qaado ayay door weyn ka qaataan wadanku qofku inuu wadankiisa ku qabsanaado oo xataa asaga empower garayso oo ay dhiirigeliso oo isdhaho intaas wadada u soo dhintay xorribada aad maanta harsanaysid adigu maxaad qaban kartaa waa door weyn oo motivational waa empowering waa dhiirigelin bay u tahay taas waa ku amaanaya laakiin dhaga kalena xukuumadda nabad iyo nolol waxaan ka mid ahay dadkii ka soo horjeeday meesha haliyayadii dameerada iyo fardaha ahaa ee Ingiriiska u soo dagaalamay meesha la maamuuso ubax loo beeray aad baan uga xumaa in haliyay Soomaaliyeed oo dagaalkii labaad soo galay oo la yiraahdo qalbi dhagax in Ethiopia loo dhiibo waa maxaaradii laftigoodii dib looga dhibo arrin aad u fooxun bay ahayd waana ka soo horjeeda waana dadkii ku dhalay leeban ka mid ahaa because anigu nabad iyo nolol aan ahaado laakiin cawo iyo maalin horseed
ها زيد قطبة ها هات كسعة نولو جيرو شوك ماقا وحي خلدنا وقت الماما هي وحي سهلنا وحن ليه مدحوينه ولن وحن آدو قفر حيشلا يوكله هيد مالك عيدة مدحوينه إنه وقت يسي قاطي أو تقول لا عيدة ماذا قلب كسيدة دي رجلين وين بهيد برتبه لنا ما نكسو سلامة يا مورال لسن كوحوي دت كان هدي أي dameerahoodii iyo eydoodii iyo fardahoodii iyo waxoodii dagaalkii labaad ka qayb galay maamuuseen Soomaaliyeey ya maamuus idinkuna dadka waxa idin tara dadka waxa u soo halgamay dadka xornimada u soo qaatay aad baan idin salaamaya waa walaalkiina Abuukar Cawaale barteeda YouTube-na ku soo dhawaada walaalahana gaarsiiyad shaqooyin kale balaana waa idin soo wadaay hadda subscribe meel oran jira bahalkiina saar hadda salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh